salaan kadib waxaa wacaa madasha xoogahoo daqiiqadaha liitaama dhacay dhib malahan marka insha Allah tacaala wixii niyuusiyeena ustaad Khaalidna waa filaya inuu nala joogo wixii warbixineen hadda inaa indhaha sii mariyaa rabaa kadibna aan inila wadaaga abdeedyadii ugu dambeeyay ee suuqa wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Bansett ayaa sheegay waxaa dhawaan arki doontaan koror weyn oo maalgashi ah wax soo saar iyo shaqo abuur guud ahaan dalka Mareykanka sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ka fiirsanaya inuu joojiyo xiriirka ganacsiga Mareykanka la leeyahay dalka Shiinaha sidoo kale Oxy ayaa balaarisay iskaashigeeda ee la leedahay Standard Chartered gudaha Yurub taasoo u ogolaanaysa macaamiisha hay'adaha maaliyadeed inay ku ganacsadaan ama ay ku keydsadaan hantida digital assetka sidoo kale walaalaha Wikileaks ayaa ugu yeeray Bitcoin Gold ilaa iyo 2.0 iyagoo sheegay inay xadidaadaasi ay fududeyn karto in dalabkiisii kordhayay hay'adaha maaliyadeed ay sababi karaan inuu gaaro ilaa iyo 1 milyan xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Bansett ayaa sheegay inuu rajeynayo xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan Shiinaha isla markaana ay wada hadallo u socdaan labada dhinac sidoo kale BlackRock ayaa wadajir u ah hogaaminaya heshiis 40 bilyan oo lagu iibsanaya shirkadda weyn oo data center sidoo kale market makerska ayaa ka baxay suuqa iyadoo farqiga qiimaha u balaaday ilaa iyo 22% taasoo muujinaysa argagax buuxa oo ka jira order boxka sidoo kale crypto quant CEO ayaa sheegay in Bitcoin future traders in badan ay yihiin retail ganacsato yaryar celceliska cabirka marka ayaa hoos ugu dhacay ilaa iyo 6,000 horaantii sanadkan ilaa iyo hadda okay Tether ayaa daawacday ilaa iyo 1 bilyan oo lacag USDT ah New York ayaa daahfurtay xafiiskeedii ugu horeeyay ee Digital Asset Office kaas oo diiradda saaraya kormeerka iyo horumarinta hantida digitaalka ah digital assetka ee global sidoo kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in BRICS ay ahayd weerar ku ah doolarka Mareykanka Ethereum ayaa diiwaangelisay soo gelinta ugu weyn ee stablecoin 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo lagu daray ilaa iyo 775 milyan gudoomiyaha Bitmain ayaa sheegay in Ethereum oo gaadha $12,000 aysan noqon doonin below of top meel ay ku istaagayso sidoo kale qiimaha dahabka gold future ayaa gaaray ilaa iyo 4,200 markii ugu horeysay ee taariikhda dhoofinta Shiinaha ayaa korortay xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan 6 bilood ee la soo dhaafay taasoo muujinaysa xoognida ganacsiga inkastoo canshuuraha Mareykanka ay sii socdaan Ethereum Fusaka upgrade ayaa hadda ka shaqeynaysa Sybolia testnet iyadoo la tijaabiyay xaddiga gaaska ee sareeya higher gas limit iyo nidaamka cusub ee hor soo saarista mainnetka December marka waa saaxiibayaal intaana kusoo afmeera